mar kale kusoo dhawow barnaamijkayga aan kaga hadlayo documentary filmmaking, sida loo isticmaalo, waxyaabuu ka kooban yahay iyo siyaabaha kala duwan ee loo adeegsado. lixda nooc ee ugu caansan ee documentary filmmaking horta marka koobaad waxaa ka mid ah expository documentary, observational documentary, reflective documentary, participatory documentary, and poetic documentary iyo ka ugu dambeeyo noqonaya reflective documentary. lixdaasiba waxa weeyaan lix nooc oo loo isticmaalo documentary filmmaking-ka. marka saan hore uga soo hadalnayba barnaamijkeedii hore aan ka hadalnay, especially barnaamijkeeni ka hadlayay pre-production ayaa waxaan kaga hadlay documentarygu wuxuu yahay. documentarygu waxa weyn waxyaabo non-fiction khiyaali maaha, waa waxyaabo dhaba. documentaryada badan aad aragteen waxa ka mid ah National Geographic oo kale aad bay u duubaan documentaryadaas oo kale, hadday ka hadlayaan dhaqan, hadday ka hadlayaan xayawaan, hadday ka hadlayaan badda, hadday ka hadlayaan waxaas oo dhan waxay isticmaalaan iyagu documentary bay isticmaalaan markay duubayaan. marka maanta waxaan doonayaa inaan saddex un aad u taabto. saddexdaas waa saddexda ugu caansan aad inta badan dadka documentaryada daawadeen ay arkeen. saddexda kale inta badan inagu ma aragno oo naguma badna ama aad looma duubo, ama waxa weeyaan documentaryada hore loo sameeyey magaca loo bixiyey laakiin ay ku adagtay dadku maanta in ay haatadan ay duubaan. laakiin saddexda ugu caansan waxa weeyaan expository documentary, observational iyo participatory. saddexdaas maan doonayaa maanta inaan taabto. expository documentary-gu waxa weeyaan horta runtii ka ugu caansan ee la sameeyo waxa weeyaan in aad documentary intaad duubto aad ku dul codayso, deetana dadkiina ay arkaan qofkii oo wixii matalaya waxaad ka sheekeynaysa qofkii oo sameynaya. waxyaabaha ku caanka waxa weeyaan documentaryada BBC oo kale laga duubo, documentaryada badan ee National Geographic ku jira, documentaryada Allahumma salli ala Muhammad, usually inay documentary aragtay ee lagu dul hadlayo narration uu jiro oo arkayso narrationkii iyo ficilkii qofkii qabanayna isleeyihiin qofkii shakhsigii laga duubiyey documentarygu isaguna hadlayo uu ka qayb qaadanayo documentaryga. waxaasoo dhan taas runtii horta ugu caansan, especially marka documentary filmmaking laga hadlayo. halkan sare waxaan doonayaa inaan ku lingareeyo documentary aan duubay oo koobnaa oo isagu expository documentary ahaa. waa lagu dul codeeyey, aan waan edit gareeyo, waan duubay, waan hagaajiyey, laakiin qof kale ku dul codeeyey waxyaabo badan oo aan ku saabsan halkan dalkan aan joognay iyo racismka iyo waxaa ka hadlayana waan ku duubay. ujeedadiisu intaasay ahayd. marka waxaan doonaya halkan inaan ku lingareeyo oo dee haddaad waqti u hesho inaad daawataan. talabaadee aadka u caansan ee dadku ay duubaan waxaa ka mid ah observational documentary. waxaa la yidhaahdo observation baad qabanaysaa, yacni waad daawanaysaa ninka wax duubaya iyo audience waa isku mid. anigaygaa daawanaya, anigaygaa duubaya, qofka daawanaya isku sibaan wax u arkaynaa. anigaygaa wax duubaya maanta lama faragelayo qofka aan ka duubayo documentary. kuma odhanayo sidaa yeelaya saa yeel, kuma odhanayo waqtigaa wax qabay waqtigaa wax qaba. anu qofka waxa la waxaan ku odhanaya ma jirto. Englishna runtii waxaa lagu yidhahdaa a fly on the wall baa la yidhahdaa. saasaad matalaysaa. iminka duqsiga maanta gidaarkaa saaranaya aniga i daawanayay maanta halkan jooga, dee hawshiisu wata, waxba kama gelin waxa halkan ka socday, waxaan la duubayo, laptopkan aan waday, waxaas uu kama gelin. marka waa saasoo kale aan observational documentary-gu anigaygaa duubaya maanta, qofkaas wax qabanaya kuma odhanaya waxaa samee. anigu horta waan daba soconaya, waan duubanaya, kumaan odhan war soo jeesiye sii jeesiye halkaa. even qofkaas hadduu iga sii jeedo sii jeedkiisu baan duubaya, because waxaan iska dhigaya anu qofka audience-ka inaan the experience wanaagsan aan ku siiyaan doonaya. waa marka labaadee qalabkuna wuu yaraa runtii. markaad observational documentary aad duubiso ma rari kartid, 100 kamarood ma qaadan kartid, ma odhan kartid light baan kuu qabanaya. no, waa inaad wax kastoo natural ku yimaada isticmaasho. haddii halkan sanqadh laga wado oo qof dee maaragtay gidaar feerayo oo kale dhug aad maqlayso, dee maanta waxaad ka bedeli karta ma jirto, because that's the natural way of filming. ma odhan karo walaal naga yaradaa halkaa aan inaan kana wax ka yaro, ma odhan kara saas. laakiin expository documentary-ga iyo wax documentaryada kale saa waan odhan karaa. waxaan odhan karaa walaal naga yaradaa aan dhammaystira halkani. laakiin observational ma odhan karo runtii. marka sidii baan anna dee ku daayey oo waxaan doonaya qofkaasi dee in aad experience fully aad hesho. runtii saddexaad waxa weeyaan participatory documentary.
participatory documentary waxa weeyaan waa markuu directorku ka qayb qaadanayo documentaryga qofka duubaya ama qofka kamarada haysta markuu ka qayb qaadanayo waxa kaloo taa laftirkeeda waan duubay barnaamij baa jira la yidhaahdo 9 to 5 unfiltered oo ku jira channelkayga kale barnaamijkaas waxa weeyaan documentary aan anigu duubayo anaa kamaradii haya anaa codkii haya laakiin haddana anoo wixii soo gudbinaya baan haddana ka qayb qaadanaya anu laftirkaygu barnaamijkii amba qofkii aan waraysto amba qofkii aan duuba wuxuu qabanayo de hadal aan ku darsado laakiin muhiimadda waxa weyn participatory waxa weyn inuu ka qayb qaadasho inuu qofku ka qayb qaataa la yiraahdaa marka expositorygii koobaad aan ka soo hadlay narration baa jira hadalkaygu baad maqlaysaa markaan ku duubayo oo ma arkaysid qofka wax duubayana ma arkaysid qofka laga duubayo baad arkaysaa laakiin participatory wuxuu kaga duwan yahay qofkii baa ka qayb ama filmmakerkii amba qofkii documentaryga duubiya directorka ahaa amba kamarada sitee baa ka qayb qaadanaya laakiin inta badan waxa ku caana documentaryadaas oo dad badan oo atig Soomaaliya kulli way duubaan cabsana hirri waa kamid in badan oo participatory documentary uu duubay mabda buu ka hadlayaa amba topic buu ka hadlayaa laakiin isagiina uu ka qayb qaadanayo qofkii uu la soconaya uu la talaabsanaya marka uu la sheekaysanaya qofkii marka taasoo kale waxay noqon kartaa it's a participatory documentary barnaamijkan halkan channel aan isagana channelkayga kale waxaan ku soo dhigay playlist baan leeyahay ku ururiyo marka fiiriyadaas dhowr qof oo kala duwanna de waan ku waraystaa oo anigina waan ka qayb qaadanaya videogii oo de waan iska duubaya anoo qofkii waraysanaya marka aan waraysiga dhamaysanana de qofkaasi wuxuu xirfadiisa iyo kala budatan ii soo bandhigayaa waxay ahayd ama de waan u dhaxaysiinaya waraysiga dhexdiisa marka taasoo kale it's called the participatory documentary aniguna saan idin sheegay channelkan aan leeyahay halkan markaan soo dhigi doono ghost story production baa la yiraahdaa halka runtii waxaan ku soo dhigaa documentarygii halkan kama sheekaynayo daanoo ficilkii qabanaya oo amba duubaya ama de intaan soo duuba aan soo bandhigo amba participatory ha noqdo amba observational ha noqdo amba expository ha noqdo mid doona ha noqdo even reflective marka qaarkood waan isku dayaa inaan reflective duubo horta runtii waa muhiim horta inaad ogaato documentaryga sida loo duubo tan hadhow ha ku dambaysaba style iyo filmmaking horta inaad ogaato documentaryga uu ku soo baxayso ma topican best tan aan qaata kamaradaydaan horta aan ku soo duubo intaas baan doonaya maanta inaan kaga hadlo barnaamijkayga aad baad u mahadsantihiin